أهلا بضيوف قد جاءوا اجزهم الجنة يا باري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي قاري والسلامي مقعي ورحمة هلك أدنى قدا ونسان وملاك جنال ما أنت بحن كهض لنا عقبضها كيني كرو إن إلمها وناس كقوايو عشر كهري وحاوصو هذلني ناس نوجين تتبيعي نحيتهاي يقابك إلمها الناس كرونوجيتهاي ما أنتنا وحن كهض لدونا waxyaabaha diidi karo ama caqabadaha ka hor imaan karo ilmaha in uu helo naasnuujin dabiici ah. saddex caqabad ayaa u kala qaybin doonaa. caqabad ka imaan karto dhanka hooyada, caqabad ka imaan karto dhanka ilmaha, iyo caqabad labadoodaba ka baxsan oo khaarijka ah oo banaanka uga imaan karto. insha Allah waxaan ku horumarinaa caqabadaha ku imaan karo hooyada. caqabadaha hooyada ku imaan karo waxaa kamid ah hooyada in aysan helin caano ku filan ama naaska uusan lahayn caano ku filan ilmaha. sidoo kale caqabadaha hooyada ku imaan kara waxaa kamid ah in xanuun uu jiro, uu naaska ka jiro xanuun ama dheecaan, nabar, waxyaabahaas oo kale, gaar ahaan ibta naaska meesha ilmaha laga nuujinayo ee mushkilad ka jirto. iyadana waxay keeni kartaa caqabad ilmaha inuu naaska jaqi waayo. waa la xalin karaa in hooyada dhakhtarka ila xiriirto oo kale ayaa lagu xalin karaa iyada. sidoo kale waxaa kamid ah caqabadaha dhanka hooyada ka imaan karo in hooyada ay qaadato daawadaas oo saameyn karta caanaha, sidoo kale saameyn ku yeelan karta ilmaha. sidoo kale caqabadaha dhanka hooyada ka imaan karo waxaa kamid ah hooyada in ay ur qaado iyada oo ilmihi yaraa naaska jaqsiinayso. taasna waxay keeni kartaa inay hooyada awood u yeelan weyso in laba ruux ay wada quudiso maadaama jirkeeda uu qabanayo shaqo dheeraad ah. waxaa loo baahan yahay markiiba inay ilmaha ka joojiso naaska si oo tartiib ah. waxaase kasii wanaagsan hooyada marka hore intay ilmaha naaska siinayso inay iska ilaaliso inay uur qaado. sidoo kale caqabadaha dhanka hooyada ka imaan kara waxaa kamid ah hooyada inay qabto cudurada karooniga ah. iyadana waxay noqon kartaa caqabad ilmaha u diidi karto inuu naaska jaqo. sidoo kale caqabadaha dhanka hooyada ka imaan kara waxaa kamid ah hooyada inay xanuun uu jiro, qandho kale inay hayso, inuu nabar qabanayo kale oo sababay nifaaska ama dhalmada ilmahaas ay dhashay uu sabab u noqday. iyadana waxay keenaysaa hooyada inay naaska nuujin weyso ilmaha. caqabadaha dhanka hooyada ka imaan kara waxaa kamid ah hooyada inay qabto cuduro dhanka caqliga ah ama maskaxda ah, aysan ahayn qof dhammaystiran, ama waxay qabtay oo kale suuxdin. waxyaabahaas oo dhan waxay saameynayaan caruurta. intaas waxay ahaayeen caqabadaha ilmaha u diidin karo inuu naaska jaqo oo dhanka hooyada ka imaanayay. haddana waxaan ka sheekeynaynaa caqabadaha dhanka ilmaha ka imaan karo. caqabadaha dhanka ilmaha ka imaan kara waxaa kamid ah ilmaha in uu dhasho isaga oo aanan abuuristiisa dhammaystirnayn, aysan suurtagal u ahayn inuu si fiican u jaqo naaska. sidoo kale hadduu xanuun ka jiro habdhiska neef mareenka oo kale, haday mushkilad ka jirto, iyadana suurtagal uma ahan inuu si fiican u jaqo. sidoo kale caqabadaha dhanka ilmaha ka imaan kara waxaa kamid ah in uu jiro shay ama nabar ama wax uga yaalo afka dhexdiisa oo aanan suurtagal ka dhigaynin ilmaha inuu si fiican u jaqo naaska. sidoo kale waxaa jiri kara caqabado ka baxsan labadooda, hooyada iyo ilmahaba ka baxsanaa jiri karo. waxaa kamid ah hooyada inay banaanka ka shaqeyso kale. markaasoo kale waxay sameyn kartaa in caanaha hooyada loo dhiso oo meel loo dhigo, meel aanan qabow ahayn, kuleelna ahayn, ama biriijkoo kale hadii loo geliyo wuxuu ka dhigayaa qabow. aan usoo sheegnay naasnuujinta dabiiciga ah markaan ka hadlaynay caanaha naaska inay yihiin caana normal ah, aanan qabowna ahayn, kuleelna ahayn, hadba xaalada markaas uu ilmaha ku sugan yahay la jaan qaadayo. sidoo kale waxyaabaha oo khaarijka uga imaan karo waxaa kamid ah in uu yimaado furiin. hooyada markaasoo kale waxaa laga yaabaa inay caqabad ku noqoto, ama uu dhaho aabaha waxaa u baahanahay ilmahayga inaan aniga korsado. khilaafkaas waxay keeni kartaa in ilmihii aanan si sax ah naaska loo nuujinin. ama inta badan ragga Soomaaliyeed
waxay sameeyaan waxyaaba aada wanaagsaneen oo ah awooda keli uu leeyahay ee tahay hooyada markay kala tagaan inuu ku celceliyo biilka iyo waxyaabihii ay u baahneyd ama mataqaana isheeg si fiican uusan ula dhaqmin waxyaabahaas oo dhan waxay caqabad ku keeni kartaa in ilmaha uu si fiican naaska u jaqi waayo laakiin waxaan leeyahay ragga soomaaliyeed ilaahay ha uga baqaan dumarka oo xataa haddii la kala tago waxaa jiro waxyaabo oo muhiim ee tahay in la ilaaliyo markii horena inta aan la isguursanin ee ahayd in laga soo wada hadlo lacala haddii la kala tago iyo haddii la isla joogaba in laga wada hadlo ilmahan mustaqbalkooda iyo sida noloshooda ay noqonayso iyo qaabka loo barbaarinayo waa inay jirto waxyaabo ay isku waafaqsan yihiin hooyada iyo aabaha ay u wada korin karaan cashirkeena maanta intaas ayuu ku egyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu